xafladani ayaa maanta loo qabtay ardayda dhigata dugsiga Axlaam Keejiya ee magaalada Burco. Munaasabaddan ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin mudan iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadashay isla markaasina faahfaahin ka bixisay munaasabadani maamulaha dugsiga Shukri Ibrahim Ali. waxaan u hambalyeeynaa ardaydaas hadda hayaanka bilaabay weli ma gaarin heerkii aynu u baahnayn laakiin maanta waxay dhadhamiyeen midhihii loo baahnaa inay laastaan in ka mid ah haddii aan dhowr qodob taabto iskuulka Axlaam waxaa la aasaasay 17 bishii 7 2022 maanta oo aynu joogno waxa uu aasaasan yahay dugsigu waxa weeyaan hal sano iyo badh halkaas sano iyo badhkaas midhihii aanu qornay ee xilliga aan ka bilownay maanta waa kuwa idin hor fadhiya waxaan rajaynayaa inuu noqdo 1 sano midkii jira iskuulka xilligii la aasaasay taariikhdiisu xilligaas weeye meel walba marka la aasaasayna waxa loo aasaasaa sabab iyo ahdaaf ay leedahay ahdaafta dugsiga waxa ka mid ah in la soo saaro طالب متميز ardayda kale ka soocan oo maadaama la yiri ardaydu ka soocan yahay inuu kaga soocnaado dhinacyo badan dhinaca akhlaaqda iyo dhinaca mujtamaca ee bulshada iyo dhinaca wax soo saarka iyo ibdaaca iyo dhinaca mahaaraadka iyo xirfadaha uu aanu adeegsan karin oo kaliya cashka loo dhigay laakiin xirfado badan uu yeelan karo iyo dhinaca mawhibooyinka arday walba ilaahay wuxuu u abuuray mawhibo gaara horta intaas ardayda aanu ku soo saarno oo aan ogaano arday walba meeshu ku fiican yahay oo aanu ka dhisno inta marka ka yimaado bilowgii dugsigu wuxuu ku bilowday waxay ahayd hal galaas afwan 2 galaas laakiin maanta horteena waxa fadhiya 4 galaas haba ka badnaadaan oo 5 galaas oo ku sii socdaan 4 galaas way hadda inta iskuulka joogta dugsigu xilliga uu shaqeeyo waa gelinka hore oo kaliya insha Allah waxa yaabaha bushaarada leh waxa kamid ah in aan laga dhigi doono labada gelin taasoo waxaan baarsan bulshada gelinka dambana waxa weeye waxa loogu talagalay kaliya dumarka horena waan u sheegay haddana waan u sheegayaa waan xasuusinayaa waxaan wadiya dugsiyada waxaan hayada maalinka waagii baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa waajibkiina waxbarta u xambaar waajibkiisa salaada kaca naftan saxaya sujuuda bara الله صدق سرين مدنة سؤال حقي ساسجنا أنا كفر أحسن إيمان تعنقها هبلها والد كودي إن أنا وحوي وحي أنا قصة تعبني مددر أنا ما أنت مددر كودي أرجنا عادي عاد أنا كفر أحسن هاي معلمين تا إمام الجماعة الدوس جرينا أساسي أحلام لله وحارتي أنا كم رجنا هاي in ay yihiin dadkii eelka u ahaa waxbarashada oo garanaya sida waxbarashadu waxay tahay manhajku waxa uu yahay ku kooban yahay qaabka ardayda loo tacaamulayo qaabka loo dhisaayo waxyaalaha laga dhisaayo aqoon qura la siinay mise jawaanib kala laga dhisaya dadkii eelka u ahaa in ay yihiin baan u qiraynaa ubad yaryar oo hadda bilaabaya waxbarashadii iyo hayaankii dheeraa ee waxbarasho waxayna mudan yihiin oo ay ka mudan yihiin dadka kale oo dhan in la qadariyo oo la maamuuso waayo iyagu waxay bilaabayaan waxbarashadii iyo hayaankii dheeraa in lagu dhiirigeliyo oo loo sameeyo taxfiis bay mudan yihiin barbaarintooda iyo siday ugu hagar baxayaan iyo siday maaragtay ubadka u hayaan waliba waxay wax walba kaga duwanaayeen iskuuladii aan tagay hablo dhalinyaraan wali hooyo noqona haddana ubadkii aad u keentay aan ka dilin kaadir baaxeen u hagar baxaya gabadhii waxa halkaasi lagu maamuusay ardaydaasi dhameysay galaaska Keejiga Maxamed Bulshaawi telefishinka Burco